kulan wacan yaa tahay cidda hurinaysa balaayo aan ka jirin magaalada Gaalkacyo ma dhabbaa in maamulka Puntland ciidamo fara badan uu soo dhoobay magaaladaasi galmudug waxay ka jawaabtay war ka soo yeeray maamulka Puntland maxaa ka jira in ciidankii BSF ee fariisimaha ku lahaa dhanka Puntland ee Gaalkacyo ay u wareegsadeen dhinaca maamulka galmudug wararkii ugu dambeeyay magaala madaxda gobolka mudug ee Gaalkacyo ayaa halkan ku maqli doontaan hadduu eebbe idmo Gaalkacyo saacadihii imaamihii la soo dhaafay waxaa ka soo baxay warar kala duwan oo sheegayay in magaaladan laga abaabulayo in mar kale uu ka dhaco dagaal sokeeye oo u dhaxeeya maamulada Puntland iyo galmudug inkastoo ilaa haatan wax dhibaataha aan laga soo warin magaalada Gaalkacyo haddana wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in magaaladan saacadihii la soo dhaafay Puntland ay ku soo daabuleysay ciidamo aad u fara badan galmudug war ayay ka soo saartay warqad ka soo baxday maamulka Puntland waxayna ku sheegtay in gudaha maamulka Puntland uu ka jiro culaysaad waxayna ugu baaqday maamulkaasi inuu xalliyo culayska ka jira deegaanada maamulkiisa ka hor inta uusan ku mashquulin magaalada Gaalkacyo oo ay ku sheegeen inay tahay mid amni ah galmudug sidoo kale waxay sheegtay in haddii khilaaf uu ka dhaxeeyo Puntland iyo dowladda dhexe aan loo baahnayn in galmudug loo soo dhaxmaro ama loo adeegsado taas oo ay kaga digtay maamulka Puntland ciidankii BSF ee ku sugnaa saldhigooda dhanka Puntland ee magaalada Gaalkacyo ayaa la sheegay inay u soo wareegsadeen dhanka galmudug markaas oo ayga saldhiga Puntland ee keentay ciidamo aad u fara badan waxaa la sheegay in gaadiidkii dagaalka iyo ciidankaasi ay u soo wareegeen dhanka maamulka galmudug waxaana la tilmaamay in magaaladan ay soo dhoobteen ciidamo fara badan oo Puntland ay keentay saacadihii la soo dhaafay isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaana xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga warbaahinta gudaha ayaa maalmihii la soo dhaafay saacadii u dambeysay waxa ay tabinaysay cabsi laga qabo in 10 sano kadib magaalada Gaalkacyo uu ka dhaco dagaal sokeeye oo u dhaxeeya Puntland iyo galmudug waxaana jiray digniino iyo baaqyo ku aadan in laga hortago wax walba oo sababi kara in dagaal gacan ka hadal ah uu ka dhaco magaalada Gaalkacyo wixii warar ah ee soo kordha halkan ayaad ku maqli doontaan hadduu eebbe idmo